إنا لله وإنا إليه راجعون وحاويان وأرين نصيب درة نقول عدي و very very bad situation ونصيب درة وأيان درة وحاويان وهوي Soomaaliyeed oo wiilkeedii maxaa la yiraahdaa uu maxaa la yiraahdaa lagu qashay ama maxaa la yiraahdaa lagu operation gareeyay isbitaal uu u doonanayo daawo sometimes isbitaalada Mareykanka maxaa la yiraahdaa farmashigu wuxuu ku dhex yaalaa isbitaalka dhexdiisa ayuu ku yaalaa qayb kamida qaybtaas oo tagaysa oo daawooyinkaada ka soo qaadanaysa hooyadan wiilkeeda maxaa la yiraahdaa daawo ayuu wuxuu u raadsaday isbitaalka inuu ka soo qaato maxaase dhacay maxaase ka dambeeyay waa arin really murugo leh ayaan daraa nasiib daraa meel kastana nagu haysata haddaan Soomaali nahay aan isla aragno maamada ilayhi raajicuun sheekadayadu waa taas afartaa dumar aan ku taaganahay rag ma haysano maydkayagii wakaa waa taa hooyadii dul taagan waa taa maydkayagii waa taa maamadii ooyeysa waa la qashay keliyii baa lagala baxay beerkii baa lagala baxay communitigii waa diiday inuu wax ka qabto masjidkii waa diiday inuu wax ka qabto innaa lilaahi wa innaa ilayhi raajicuun waxay leedahay communitigii waa diiday inuu wax ka qabto masjidkii waa diiday inuu wax ka qabto masjidkay tageen communitigay tageen arinta wiilka ayay u soo bandhigeen waxa weeyaan wax nagala qabtay yiraahdeen wiilkayagii baa isbitaalkii kaliyihii iyo beerkii iyo maskaxdii iyo wadnihii lagala baxay macnaha wixii uur ku jirtii dhana lagala baxay markaas haddana maskaxdii lagala baxay waxa weeyaan daawo raadsaday sida idin sheegay oo dhakhtarka u raadsaday inuu ka soo qaato oo maxaa la yiraahdaa wiilka xoogaa wiil xabsi buu ka soo baxay maskaxdana waa looga jiray muddada uu xabsiga ku jirana daawadiisa waxa siinaya waxa lagu siinaya xabsiga lagu siiyay markii uu ka soo baxana xabsigii waxaan daawadii ayuu wax u raadsaday isbitaalka isagoo socdo cagihiisa ku socdo caafimaad qabo ayuu aaday markuu aaday waxa weeyaan dib dambeeto uma soo noqonin waa mucjisada taal meesha qof caafimaad qaba oo wanaagsan oo ka tagay oo daawadiisi raadsaday oo isbitaal aaday in maydkiisa lagugu yeero waa mucjiso aanan anagu waxay tahay aanan garanaynin waana midna wada haysata baraha haddaan nahay Soomaali waa arrinna haysata sababtoo ah gabdho badan ayaa maqan meel ay ku maqan yihiin lama yaqaano disappear wiilal badan ayaa maqan meel ay ku maqan yihiin lama yaqaano gabdhihii wiilal ayaa xabsiga ku jira maanta qaarkood been abuur ugu jiraan waxay ugu jiraan aan la aqoon qaarkood gaangis ugu jiraan iyo isdilid ay iyagu isdileen community-gana waxaa loo dhisaa ama loo abaabulaa ama loo abuuraa sideedaba inay ku caawiyaan oo community waxay ku yihiin adigay kugu yihiin macnaha markay community-ga furanayaan waxay ku furtaan inay adiga ku caawinayaan ummadda Soomaaliyeed inay caawinayaan waa inay maxkamadda ku qabtaan abukaato ku qabtaan waa in ay kula socdaan ilaa ay xaaladaadu meeshii ay ku dhamaanayso meesha ka bilaabato ilaa meesha ku dhamaanayso sidoo kale masjid waa masjidyada Mareykanka waxa weeyaan waxa dhisa oo masaajidka ugu badan oo dhisa oo dahabkooda u furo oo lacagahooda siiya waa dumarka Soomaaliyeed soo waxa garata ma aha masaajid markii lagu yiraahdo gabar Soomaaliyeed ayaa ugu horeysa hooyo Soomaaliyeed ayaa ugu horeysa oo wax alaali waxa ay hayaan ayay dhigaan maanta ma ahan masaajidkii markay tagaan caruurahoodii oo kaliyii lagala baxay oo la qashay in masaajidkii uu wax u qaban waayo ama community-gii uu wax u qaban waayo afar dumar inay meeshaas taagan tahay ee maciin daro la taagan yihiin oo hayo oo 200,000 oo Soomaaliya ku nooshahay oo maxaa la yiraahdaa ay u soo gurman karaan oo u soo kici karaan ay u mudaharaadi karaan oo sabab u sameyn karaan sababtoo ah waxa weeyaan haddii ay dad community ka cahaya dadka cahaya la arko dadkooda laguma degdego waa laga cabsadaa sida Chinese-ka Mexican-ka cadaanka madowga kulligood ya
sababtoo haddaadan korkaada adigu dhiibinin ama aadan saxiixinin oo aadan oran markaa laysanka qaadanaysid aada qaadanaysid laysanka midka baabuurka lagu daraafgareeyo ama lagu kaxeeyo marka aad qaadanaysid haddii aadan qorinin inaad korkaada aad bixinaysid oo donation u bixinaysid maxaa la yidhahda maanta qof hadduu dhinto korkaada lagu caawin karo marka aad dhimatid korkaada laguma soo degdegi karo lamana qali karo sharcina kama yaalo waxa weeyaan even qofka haddii la baafinahayo macnaha dheecaan in laga qaado oo wax laga qaado waa okay haddii aan qofka dadkiisi la aqoonin laakiin ma ahan in organadii oo dhan lagala baxo because qofkana maba saxiixinin sababto aan mana garanayno inuu saxiixay iyo in kaleeto allahu aclam iyo inuu driver laysan haystay sababtoo hooyadiisna waxay tiri waa qof maskaxda xoogaha maskaxda ayaa looga jiray tiri wuu xanuunsanaay tiri حسبي الله والنعم الوكيل صومالي هيركاسانو مرينا وانبأني وانباباني نرول مليهن نف مليهن رقم هايسانو لا وحان كنو لهي ما جرتو أفرتا دمرين وجوغناه إنا لله وإنا إليه راجعون إنا لله وإنا إليه راجعون برقي بالقلب حي ميل والبوالق واتاه barigii wixii yaqaana laakiin waxaan maleynayaa inay ka wado maskaxdii baa lagala baxay inay ka wado maca maskaxda way ka qaleen sababtoo qofkii markay qalaan waxa weeyaan hadday rabaan waa isku tultulayaan because wax meesha yaalla male wax uur ku jirtay oo dhan lagala baxay waan eegaynaa rag la-aanba halkaana turtay xabaalahaasaana lagu gurayaana lagu awdayaana lagu aasayaa inamadayadii dhammaade ilaahay subxaanahu watacaala noo maqan soomaali maxamedey ragga isku haysta madaxda isku haysta ilaahay waxaan bariyey waa in cuquuba dharka idinkaga soo dhacdaa intii aan xaqa qabin waa taas أفر can you open here? She needs see inside all. Can you open all? Yes, because she needs see. waxay leedahay waxay u baahan tahay inay aragto ufur ha aragtay bay leedahay kulligiis inay aragtay ayay rabtaa bay leedahay isaguna uma furayee wuxuu u furayaa maxaa la yidhahdaa wejigiibuu u furayaa sababtoo ah wejiga ma rabaan waxay rabaan inay sida loo qaqashay iyo gabar minbaa gadaal ka timid way inay aragtay ogaata ayay rabtaa isaguna ma doonayo inuu tuso sababtoo ah waa nin la qaqashay rag la-aan baa meeshana dhigtay leedahay waxna caawiya ma haysanay leedahay marka waxa weeyaan oo ayaduna I think dab casir ayay u yeerteen dab casir oo meesha yimid oo ka hadlayana waa kana idinka culimo iyo caamo carruurtii dayacay xabsiyaday ka buuxaan daroogay ka dhargeen dariiqyaday yaalaan waa qaawan yihiin wax kastoo laga sheegi karaa laakiin yaa haddii la kudma waxa kan mas-uulka ah dal iyo dibadba ragga Soomaaliyeed ceebta oo dhan waxay u taalaa ragga Soomaaliyeed fadlan waxaan rajaynayaa inaad sheergareyn doontaan kulligiin oo aad gaarsiin doontaan sidoo kale dadka cajaladaha jarjarta fasax uma haysataan cajaladan inaad xadaan haddii la gudnaayo ama Facebooka ama YouTubeka meel lacag laga sameeyo iyo meel adduunyo laga sameeyo ma aha cajaladaha kan inaad jarjartaan permission uma haysataan qofkii qaatana waa looga daba tagayaa oo lagu dacwoonaya weligay anigu xoolo kama qaadan sida ilaahay iga sarreeyo YouTubena kama qaadan Facebook ma kama qaadan wallahi billahi tallahi haddana kama rabo waxaan u sameeynaa waxa kana waa ilaahay dartiis ilaahayna ikhlaas anagu arsaaqo daacadnimana hanoga dhigo kulligiin marka sheergareeya oo hooyadan Soomaaliyeed oo ilmeynaysa iyo gabdhahan Soomaaliyeed dumarkan Soomaaliyeed kulligood halkan waa ilmeynayeen waxa iga soo wacday hooyo markaan ka soo galay xuduudda dalkaasi Mexico oo joogo gobolkaasi California ayay soo wacday ayada iyo gabar baa soo wacay si degdega ama haleela ama dhaqsa ayaan tigid u goostay marka maalintii arbacadaan goostay waxay ahayd maalintii khamiista inaan soo kaco diyaaradii baa 12kii iyo xoogaa markay ahayd iga soo tagtay haddii la gudnaayo diyaaradii markay iga soo tagtay walaalayaal barakallahu fiikum diyaaradii ma noqon 12kii duhurnimo ayay iga tagtay laakiin 10:30 PM habeenkii baan ka waana inaan isa saxno marka waxaan ku soo dhaweynayaa mikrofoonka hooyo ayaan ma ku soo dhaweynay hooyo ayaan soo dhawow waxaan leenahay marka hore aniga Soomaali way ma kula qaybsanaynaa
مرقته وعن كلنا إنا لله وإنا إليه راجعون إن لله ما أخذ وله ما أعطى وكل شيء عنده بأجل مسمى فلتصبر ولتحتصب هرتا هويو هرتا مقعد إيش مقعد إيش مقعد أي سي أسبلسة هرتا سوق هويو $5,000 ما شاء الله ما شاء الله 5,000 5,000 oo dollar ayuu u qora maamada oo lacaga jeebkiisana weeye jeegiisi weeyaan isagaasi lacagta sadaqa oo u sadaqaystay Mareykankana donation bay yiraahdeen ayuu siiyay ninkan waa maqlaysaa inuu yiri aniga YouTube-ka lacag kama sameeyo Facebook-na lacag kama sameeyo yiri yaana la jarjarin buu yiri maxaa la yiraahdaa cajaladahayga dadka cajaladaha iyo waxaas jarjaro ka hadlaya marka ma sha Allah waxa weeyaan ilaahay ma sha Allah khayr badan ha siiyo dabcasir dadku caawiya ma sha Allah tawjada waxaan guddoonsiinayaa hooyo $5,000 waxaan guddoonsiinayaa masjid al-Qur'aan wa sunnah sababta aan u guddoonsiinayo waxa weeyaan waxa laga yaabaa masaajidkana $8,000 hadda ay ku hartay ilaa 30-40 kun oo ku jirtay Soomaali baanan ku soo dhameeyay hadii laakiin dad dhibban baan ku soo dhameeyay walaalayaal lacagta marka masaajidyada dadkan baa iska leh lacagta masaajidyada yaa iska leh dadkan baa iska leh anu meelan lacag ku goro oo masaajidada xataa waa la ii diiday inaan maarto Soomaalidu inaan aan tago oo hadii la kudmaayo dadkaan kale aan uga heliyo laakiin masaajidka waa furayna insha Allah wuxuu noqon doonaa masaajidka masaakiinta looga heliyo masaajidka armalada looga heliyo masaajidka dadka la qasho looga heliyo insha Allah ta'ala masaajidka kuwa gaajaysan kuwa la xiro kuwa caruurta laga qaato looga heliyo kuwa caruurta kuwa dhibban kuwa rafaasan kuwaan masaajid u heliyo insha Allah ta'ala buu noqon doonaa insha Allah ta'ala magac hooyo say u qortay waa kaasa idinkuna insha Allah ta'ala والله isku qabiil ma dadka halkan jooga waa dad Soomaaliyeed Soomaali weyn ah waxa isu keentay waa la ilaaha illa Allah Muhammadu Rasuulullah gabadhan waxa la dhahaa Shaamay Cabdi waa gabadha telefoonka cash app-ka iyo zeelka iska leh waxaan rabay markii hore inaan ku qorno gabadhan Xamdi Jaamac laakiin xogaa yani bangiga inay tagto way oo ay saxdo insha Allah ta'ala marka ka masjidkana maana isticmaalin waxaan isticmaalnay marka si lacagtaasi ay u noqoto insha Allah ta'ala lacag toos ugu dhacda dadkan dhibanayaalka ah waa Shaamay Cabdi waa taas idin hor fadhiyo walaal telefoonka ka sheeg 614-804-7361 ku celi 614-804-7361 anyway beerkii adduunya dhan laga baxsaday wixii baniaadanka uu ku lagu duulaa oo lixdiisa lacaadan waa ka baxsadeen oo malala duugin marka ilaahay aan ka cabsano صح ilaahay aan ka cabsano ku celi numberkaaga marka walaalay 614-804-7361 taa gabdhaha ku celi mar labaad af Soomaali ku shaqadartay 6 4 Soomaaliga ma ku almaant Soomaaliga 6 4 sideed eber afar saddex toddoba saddex anaa baa halbaabay laftigeeda anyway gabdhahani waa gabdhihii caawinaya maamada oo dabcasir oo ay u yeerteen dabcasir oo isaguna maaragtay caawinayo oo maamadii macnaa advocate wadankiina ragun baa naga soo eryay halkana ragun baa noogu hiilinaynin haddii hooyo ilmo laga qaatay haddii hooyo ilmo uun wata iskuuladii baa xitaa la yaabo yidhi aaway dadkii wiilkan kaleetana saaku soo geliyey isaguna waa kana waxaan ahay hooyo Soomaaliyeed waxa la yiraahdaa Ayaan Maxamed Ismaaciil aad iyo aad baad u mahadsan tahay hooyo Ayaan Maxamed mataqaana Ismaaciil waa kaaga mahad celinaynaa hooyo xagee baad ku nooshahay meesha aad nagala soo hadlaysid oo aad ku nooshahay waa xagee Columbus Ohio miyaad degan tahay hooyo waxaan arkaynay video mataqaana waxa weeye wiil Soomaaliyeed oo adigu aad dhashay oo kaliyihii iyo beerkii lagala baxay arrintaasi ma jirtaa arrintaa
jirtaa dee malakumeed baa kolley u geeyey dhakhtarkuu tegey arbacadii bisha 3 way isoo waceen ilaahay ma qadarin inaan arbacadii dhegaysto khamiistii baan dhegaystay markaan dhegaystay dhakhtarkii baan wacay waxaan ku yidhi inankayga ma la hadli karaa magaciiyo maxamed xasan baan ku yidhi sanadkiisii baan sheegay no this person ma ku jiro 1 year baa noogu dambaysay anigii yaa wari hayrin baan ku yidhi maxaad qarinaysaan inanka sawtan dhakhtarkii aan hayo way la murmeen walaalkii baa wacay way la murmeen anaa tegay markaa jimcihii ma istaqfurna sabtidii baan tegay riboodka inamadii baan u sheegay dariska way yaabeen sabtidii baan inay wahay dugsiga geeyey dhakhtarkii baan tegay waxaan ku yidhi waxaan doonayaa inaan maxamed xasan la hadlo waa isoo wacdeen waana diideen 1 year ago bay ugu dambaysaa tiraaheen markaasay yidhaheen magaciisa sheeg waan sheegay sanadkaa taymay weydiin markaasay waxay yidhaheen 1 year ago waa you hiring baan ku yidhi maxamed xasan 10 years buu imaanaya nin buu ku ahaay markaan waxoogaa qaylqayliyaan murannay waxaan ku yidhi masajkaan kuu shiday masajkii baan u shiday what is this baan ku yidhi Chris habeenkii buu shaqeeyaa okay maxaad ila murmaysaa marka macnaha waxaad u shiday waxa weeye waa isbitaalkii laga soo wacay dhakhtarkii ku soo wacay oo telefoonkii aadan qabin amiis garaysay voicemail uu ku duubay ayaad u shido waxaad tiri waa kan voicemailkii aad ininka isbitaalka iga soo wacdeen oo dhakhtarkaan ay soo wacay oo wixii wiilkaaga waa joogaa kii baan u shiday waa garta waxaan ku yidhi Chris waayo habeenkii buu shaqeeyaa oo marka maxaad ii dafiraysaan aad wax u qarinaysaan adi markaan murmurnay nimankii sukuurka waxay yidhahdeen maam hadduuna inankaagii joogin wuu joogaa baan kuri waa kan Dr. Chris waxay ku tiri habeenkii buu shaqaynaya adi markii dambe waxay guraan gurigaagii gurigii baan iska imid masaajidkii baan wacay inanka la yidhaaho horseed oo masaajidka maamulka masaajida ku jira horseedoo baan ku yidhi inankaygi waa la qashay maxaa dhacay inankaygii arbacadii 3 bisha ayuu tagay de ilaah malakumeedkiisa geeyay wuu tagay wuuna tagi jiray dhakhtarku kuma cusba inankii inta dhakhtarkii soo wac message dhaafay markaan waxay xireen sanad ka hor baa noogu dambaysay maba dhici karta isii numberka isii wuu igu soo xiray sidii kadaalig baa isagana darbi u saareen markaasuu yidhi wax ma ku weydiin karaa haa message baad dhaafteen Dr. Chris baa ku duuban wuxuu yidhi hi I'm Dr. Chris West Hospital. I have a Mohammed Hassan. I want to speak in mother. Please call me. Hey, maxaad u diidaysaa adigaan kula hadlayaa buu naagtaadan hadda hadlaysa can you tell me inta lagu soo waco ilmahaaga la yidhaha wuu joogaa na soo wac oo aad wacdid oo haddana lagu yidhaha ma joogo what are you doing I'm mad okay then I'm uncle I'm mad I'm mad waa naxdin wax cajaayib leh markaasuu markay dee murantay buu yidhi eedo inankeena anaga raadsan oo xaggaad ka raadsan badan way qasheen maya ma qalan karaan sharci ba waa sharci gaal ma yaqaane inankayga way qasheen baan ku yidhi sidii baan ku kala tagnay hooyo aad iyo aad baad u mahadsan tahay isbitaalka mataqaanaa wiilka lagu qashay ma Columbus Ohio ku yaala waxba 15 minutes way jira maxaa la yidhahdaa magaciisa ma la wadaagi kartaa bulshada Soomaaliyeed isbitaalka magaciisa Dr. West baa la yidhaha address ma hayaa Dr. West baa la yidhaha Soomaalida oo dhan baa tagta dadka taga waa yar wax ka soo noqda saas inta u qashanayaan wadnaha istaagay ama maxay waa balabala baa sheegan imise qofkii yimaado dhakhtarkaas dhakhtar maaha Soomaalidu kama hadasho ma waxa weeye mataqaanaa maxaa la yidhahdaa isbitaalka West Hospital ma la West Hospital maxaa la yidhahdaa si fiican magaciisa haddaad mataqaanaa u sheegi kadib Dr. West baa la yidhahdaa Dr. West Hospital okay West ku yaala okay West Hospital oo Columbus mataqaanaa Westgeedu ku yaala miya Westgaan deganahay aad iyo aad baad u mahadsan tahay isbitaalka wiilka kaasi wuxuu ahaa wiilka aan wareysanayo hooyadiis waa maqlaysin waxay tiri bishii 3 iga tegay tiro isbitaalka aaday isbitaalkaas oo la yiraahdo West Hospital ayaduna hooyadu waxay degan tahay meel Westiga oo Columbus Ohio isbitaalku waa u dhow yahay wax yar buu u jiraa marka waxay tiri qofkii aadaba kama soo noqdo waxay tiri wadnaha xanuunahay iyo waxaas la leeyahay qofkii waaba isbitaal dadka qashooba dadku markay aadaan aysanba ka soo noqon gadaal uga soo noqoninba hase ahaatee waaba dadku inay iska qabtaan bay ahayd sababtoo ah isbitaalka inta la aado qofku markuu aado qofkii waa dhintay iyo leey sababtu u dhintay waa isbitaal ilaa dadka iska gurta Soomaaliduba iska fahmayba luqadooda ma yaqaaniin
markaas istaalka tagayaan istaalkii gadaal uguma soo noqonayaan halkan kaniini aa la siinaya oo la suuxinayaa soo ma garanin marka dantii lalahaa ayaa laga qabsanaya oo laga gaaraya marka wiilkan yarkaana saanaa ku dhacday laakiin insha allah tan inay tii ugu dambeysay noqotaan ilaahay ka rajeynaya waxaa waaye arrin aan caadi ahayn waa arrintan arrin soomaalidu ay u baahan tahay inay ka kacdo weeyaan oy ka dhiiradaan oy ka dhaqaaqaan macnaha waa kana dab casir waa ka hadlay maxaa la yiraahdaa qaybihiisa kaleeta ayaa insha allah kusoo qaadan doona hadda intaasaan uga baxaya kuma sii dheeraanayo I hope community-ga Soomaalida Columbus Ohio ku taala inay caawiyaan maamadan waxa weeyaan anagu we are far away from meeshay degan tahay aada iyo aada baan uga fognahay marka ilaahay idankiis wixii maaragtay caawin ayaga kuley soo sheegi doono I hope Soomaalidu meel kasta ay joogto in America maamadan in la caawiyo Soomaaliduna ay iscaawiyaan oo community-yaasha iyo masaajidayaasha ay u istaagaan dadka sababtoo ah community-gu sideedaba waxay u taagan tahay ummadda inay caawiso waxaan masaajidku sidoo kale qofka tabaalaysan inuu caawiyo waxa weeyaan maxaa la yiraahdaa looyaray u qaban karaan waa meel kasta investigator baa loo qaban karaa wax walba loo sameyn karaa waa laga daba tegi karaa everything even dadka uu hore usoo qashay ninkan waa laga daba tegi karaa sababtoo ah waxa weeyaan ninkani waa nin dadka sidaas u gala marka ilaahay idankiisa hooyadanayto waxa weeyaan waa hooyo wiilkeedii la qashay daawaca waa hooyo aada iyo aada u qalbi xun aan la qalbi xunnahay qofkii hooyaa wuu garanayaa qofkii aabaa wuu garanayaa dhibaatada waxa weeyaan meel kasta nooga haysata yurub nooga haysata maraykan nooga haysata ilaahay naga dulqaado muhiimadu waxa weeyaan dhulka yagi weeyaan oo ay niman calooshood u shaqaystayaal ay u taagan yihiin madax ay ugu talagaleen sidaan inna loo galo ilaahay kuwaasna naga qabto isaga casaa wajalaahi madaxoodana allaha ka shubo dhibaatada saa noogu dhaceysa waxaweyaan intaasaa aniga uga tegayaa ilaahay insha allah samir iyo iimaan allaha ka siiya maamadan qalbigeeda allaha u daaweeyo wiilkeeda waxa weeyaan kuwii dhibkaas u geystana ilaahay ka soo saar ha ka qabto